Heesta music ma waxa igu nool okay so Hodan in yar okay heeska noo taaba haye heesta kala idin qaadi nolosha cusub soo dhaweey ma walaqa ma way ka soo dar history-ga waa la socdaa Soomaali fiican ma aqaano but history-ga waa waxa rabaa inaan couple of things madaba you have a lot of followers I really want to say this Heesta nolosha cusub soo dhaweey doesn't have nothing to do with me are you sure heestaas waxa shaka macaanto wallahi العظيم heesta waxa ku socotaa abwaanka heesta iskale Soomaalidana this is the problem we have we don't listen the whole story but we only just pictured whatever it is wanaagsan maxaa ku jidaysaa fanaanka qaada saaxiibkaya he's my friend abwaanka qoray the writer yes he's my friend the Melanie he's my friend so I know the whole crew waxaan idin leeyahay Soomaali nabi Maxamed ya iyo Hodan naalay laftigeedaba nolosha cusub soo dhawaano ma leeyahay ninkaas kale waxa la yiraahdaa Maxamed Saciid heesta waxaan ku jeclaaday because sheekada say u macaanayeen say u sameeyeen ha waxay yiraahdeen gabadh nin jeclaatay ninkiina sheekada waxa la yiraahdaa Hodan Abdirahman iyo wiil kale Soomaalidana hadii ma kala weydiyo Hodan naalay waa kan ku qorayaan heestii I know qalbigayga mooyee ayaa this is totally wrong maybe I'm Somali مقرن maxaan ku jawaabaa jismigayga mooyee miyan kulaba joogaa maxaan ku jawaabaa jismigayga mooyee miyan kulaba joogaa kulaba joogaa Allah shacayna ku qaadaya intii horena xaafadaha soo dhameystay ha sax okay bye guys Hodan live with Shacay sending you lots of Shacay aniga waxaan jeclahay Soomaalidayda waxaan jeclahay ummadayda waxaan jeclahay calankayga sax ninkee baad jeceshahay ninkaan jeclahay ana iska badan la are you sure actually that's a personal information no it's a joke hadda Soomaalida qaatiyaan ka taaganahay if I mention one person's name or if I say a little thing all this video will go everywhere in the YouTube صح so waxa la leeyahay Hodan naalay okay ana ay jeclaatay caawa forget about I love you I really love you yeah because waxa tahay gabadha kaliya toronto ka hadasha yeah gabadha kaliya tolas caano tagta what's the problem with last Anod you got to follow LA I love it I couldn't believe when you went there I was following you why well meeshan ku dhashay maxaa la I know but you were gone for a long time so I enjoy I didn't know you were gonna adigo kalaaba noqday honeymoon baan iska galay aniga I love Somalia anywhere in Somalia you missed my joke وايدا هذا بلعبنيسا make sure adiga ahaan wadna ahaan ila dadka la soo tusay insha Allah thank you Soomaalideenna umadeena yes meel way jecelnahay bye heesta music ma waxa igu nool okay so Hodan in yar okay heeska noo taaba haye heesta kala idin qaadi nolosha cusub soo dhaweey ma walaqa ma way ka soo dar history-ga waa la socdaa Soomaali fiican ma aqaano but history-ga waa waxa rabaa inaan couple of things madaba you have a lot of followers I really want to say this Heesta nolosha cusub soo dhaweey doesn't have nothing to do with me are you sure heestaas waxa shaka macaanto wallahi العظيم heesta waxa ku socotaa abwaanka heesta iskale Soomaalidana this is the problem we have we don't listen the whole story jismigayga mooyee miyan kulaba joogaa kulaba joogaa Allah shacayna ku qaadaya intii horena xaafadaha soo dhameystay ha sax okay bye guys Hodan live with Shacay sending you lots of Shacay aniga waxaan jeclahay Soomaalidayda waxaan jeclahay ummadayda waxaan jeclahay calankayga sax ninkee baad jeceshahay ninkaan jeclahay ana iska badan la are you sure jeclaatay ninkiina sheekada waxa la yiraahdaa Hodan Abdirahman iyo wiil kale Soomaalidana hadii ma kala weydiyo Hodan naalay waa kan ku qorayaan heestii I know qalbigayga mooyee ayaa this is totally wrong maybe I'm Somali مقرن maxaan ku jawaabaa jismigayga mooyee miyan kulaba joogaa maxaan ku jawaabaa but we only just
pictured whatever Waa hees wanaagsan maxaa ku jidaysaa fanaanka qaada saaxiibkaya he's my friend abwaanka qoray the writer yes he's my friend the Melanie he's my friend so I know the whole crew waxaan idin leeyahay Soomaaliya Maxamed ya iyo Hodan laftigeedaba nolosha cusub soo dhawaana ma leeyahay ninkaas kale waxa la yiraahdaa Maxamed Saciid heesta waxaan ku jeclaaday because sheekada say u macaaneeyeen say u sameeyeen ha waxay yiraahdeen gabadh actually that's a personal information no it's a joke hadda Soomaaliya qaatiyaan ka taaganahay haye if I mention one person's name or if I say a little thing all this video will go everywhere in the YouTube so waxa la leeyahay Hodan okay and I jeclaatay awa forget about it I love you she loves I me really love you yeah because waxa tahay gabadha kaliya toorunta ka hadasha yeah gabadha kaliya tolas caano tagta what's the problem with Las Anod you got a problem with LA I love it